kusoo dhawaada mar kale iyo xiisadeenan waxaan ku tusin doonaa qaabka loogu xidhiirinayo Google AdSense-ka marka ila daawo muuqaalkan. Marka aad bixiso shuruudaha loogu talagalay in lacag lagaga sameeyo YouTube-ka waxaad ku xidhiirinaysaa Google AdSense-ka. Marka intaa kadib YouTube-kaaga tagaysaa, kadib waxaad soo furaysaa Creator Studio aynu isla naqaanay. kadib Creator Studio marka aad timaado waxaad tagaysaa monetization meesha ku qoran tahay monetize. meesha monetization ama dollarka ayar baad tagaysaa. kadib dollarka ayar markaad tagto halkan waxaad ku arkaysaa shuruudaha marka aad bixiso ee aad ku subscribe hesho 4,000 saacadood lagu daawado calaamadaha ama green ticks ama calaamadaha cagaarkaaba kuu saaraya meel kasta labada dhinacba. imika waxaan haystaa 10,000 oo watching hour waxaana laga rabay 4,000 saacadood in la daawado. marka waxaan haystaa 3,850 subscribe iyadoo laga rabay 1,000 subscribe. marka apply baad taabanaysaa marka shuruudaha bixiso, kadibna start halka ay ku qoran tahay taabanaysaa, laakiin kuma soo baxaya shuruudahan ilaa aad bixiso shuruudaha. marka start marka aad taabato shuruudahan baa lagu weydiinayaa, kadibna ay agree baad taabanaysaa meesha yar baad saxaysaa. kadib markaad halka yar saxdo waxaad taabanaysaa accept. intaa kadib waxaad sameynaysaa step 2 gaad gudbaysaa oo ah inaad AdSense-ka ku xidhiidhiso. haddaba Google AdSense-ka start baad taabanaysaa. Google AdSense haddii aad hore u lahayd waxaad sameyn doontaa lead baad soo furaysaa. Fladder markaad soo furto markaad Fladder soo furdo waxaad taabanaysaa haddii aad Google AdSense hore u lahayd yes baad leedahay I have Google AdSense. haddii aanad hore u lahaydna waxaad taabanaysaa no I don't have baad taabanaysaa. marka hadda saad arkayso waad cusub tahay oo hore uma lihid Google AdSense oo hore umaad lahayd. haddii aad hore u lahaydna step 1 kaas aad taabanaysaa yes, haddii kalena no baad taabanaysaa. marka anigu AdSense baan malihi oo haddan sameynayaa, kadibna no baan taabanaya. marka no ila eega no markaan taabto waxaan taabanaya continue. kadib markaan continue taabto wax yar baan sugayaa. intaa kadib waxa uu keenayaa akoonkaagii Gmail akoonkaagii baad gelaysaa. marka Gmail akoonkii haddii kuugu jirayna wuu kuu wadayaa, haddii aanu kuugu jirina waad dooranaysaa Gmail akoonkaaga. intaa kadib AdSense akoonkii buu keenayaa saad arkayso halkan buu keenay yes baad leedahay halkaa yar ay ku qoran tahay halkaa yar yes baad taabanaysaa ay ku qoran tahay baad saxaysaa. kadib maxaad leedahay wadankaad dooranaysaa. wadanka markaad halkan dooranayso waa inaad doorataa wadanka lacagta lagugu soo dirayo qofka lacagta kuu qaadaya uu joogo. tusaalahaan Pakistan hadduu joogo, hadduu Ingiriiska joogo, hadduu London joogo, wadamada Soomaaliya ha dooran markaad halkaa marayso AdSense-ka. marka intaa kadib hoos baad usoo dedegaysaa accept baad leedahay, kadibna create account baad leedahay. intaa kadib get started baad leedahay get started marka aad taabato saasuu akoonkii AdSense-ka kuugu samaysan yahay. adreeska qofka lacagta kuu keenaya ama lacagta lagugu dirayo ayaad gelinaysaa adreeskiisa iyo waxyaalihiisa iyo magaciisa iyo ciwaankiisa saad arkayso goobta uu joogo waxaasoo dhan baad gelinaysaa. marka waxyaalahaasad gelinaysaa saad arkayso. marka aad buuxiso shuruudaha halkan ku yaala tusaalahaan waxaad gelinaysaa halkaa adreeskiisii adrees 1 iyo adrees 2 baa jira. magaca qofka ku lacagta lagugu dirayo saad arkayso ayaad buuxinaysaa, magaalada postal code-ka screenshot unbaad uga qaadaysaa. kadibna qofka lacagta lagugu dirayo ayaad screenshot-ka u diraysaa. waxaad leedahay dhammaan foomka waxyaalaha lagu buuxinayo o dhan ay soo qorbaad oranaysaa. kadibna wuu kuu soo qoraya wixiisoo dhan hadday lambar noqoto hadday noqoto wax walba. intaa kadib submit baad taabanaysaa markaad intaa buuxiso. submit marka aan taabto wax yar baan sugayaa. redirect baad leedahay halkaa yar ku taalo redirect to YouTube channel-kaygii. marka intaa kadib YouTube channel-kaygii buu igu soo celiyey. saad arkayso shuruudda koowaad step 1kii dhan buu yidhi cagaar buu soo saaray. step 2giina waa in progress. marka waad sugaysaa step 2ga 24 saacadood gudahood baa lagugu soo aqbalaya. marka step 3gaas ayaa hadda uu dul taagan saad arkayso. step 3gaasi waxa weeyaan get reviewed in lagu soo booqdo oo Google in shirkadda YouTube-ka ku soo booqato oo ay eegto inaad buuxiso shuruudihii in de qof wax muhiim oo bulshada anfacaya soo dhiga tahay, inaad ahayn qof de warar de waxyaalo bulshada ku xadgudbaya ama hadday noqoto wax qaaqaawan oo kale qof aan soo dhigin. marka la ogaado inaad tahay way soo aqbalaysaa markaaba waxaana lagu fasaxayaa lacag samaynta. intaa wixii ka dambeeyana lacagtaadu way ku bilaamaysaa. qaabka lacagta
loola baxayo iyo qaabka loogu xidhiidhinayo Google Ads account-ka lacagta lagugu shubayo, qaabka loogu xidhiidhinayo isla muuqaalkan qaybtiisa dambaad ku daawanaysaa ee dhammayso muuqaalkan ilaa iyo inta uu ka dhammaanayo. waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka fahantay. aad baanad u mahadsan tahay. la socod wacan muuqaalkan intiisa dambe. qaabka aad ugu xidhiidhinaysaan bank account-kiina Google AdSense-ka. marka bank account-ka qaabka Google AdSense-ka loogu xidhiidhinayo ayaad ila eegi doontaan. marka talaabada koowaad qaadaysaa markaad Google-ka soo furto, halka waxaad ku qoraysaa sare google.com, weliba aan kusoo dhaweeyo google.com. markaad qorto slash baad leedahay halkaa yar calaamada yar markaad qorto waxaad leedahay kadibna AdSense baad qoraysaa AdSense. intaa markaad qorto waxaad leedahay enter baad leedahay, searching-kaad gelinaysa, kadibna wuxuu ku dul geenayaa Google AdSense account-kaagu ku keenayaa. marka intaas kadib halkan buu ku keenayaa. halkan waxaad ku arkaysaa home-ka lacagtaad shaqaysatay. tusaale ahaan 62 euro ayaan shaqaystay. tusaale ahaan account-kayga AdSense-ka waa anigan lacagtaan ka sameynayay, waa anigan hadda imi. marka insha Allah markaad intaa taagan tahay waxaad samaynaysaa kadibna si aad payment method-ka ama bank account number-ka aad lagugu soo diray lacagta aad ugu xidhiidhiso, waxaad taabanaysaa halkan payments ay ku qoran tahay payments. marka aad taabato waxaa kuu soo baxaya bogan baa kuu soo baxaya. saad arkaysaan bogan oo kale kuu soo baxaya. wuxuu ku leeyahay account bank account-kaaga ku xidhiidhi. halkan waxaad ku arkaysaa your earnings, lacagaha aad shaqaysatay. lacagtan shaqaystay waxa weeyaan 62 euro weeyaan. euro currency-ga isticmaalaya waa euro. marka 62 euro waxay u dhigantaa $70 haddaanay ka badnaynba. marka halkan waxaad ku arkaysaa 70 euro ayaa lagula baxaa lacagta. 70 euro iyo wixii ka badan markii lacagtaadu gaadho ayaad la bixi kartaa oo aad pay out ku samayn kartaa. marka hadda maxaan gaarsiiyey you have reached 89% of your payment threshold. marka qarashkii heerkii lacagta aad kula baxaysay 89% ama 90% waad gaadhsiisay. marka waxaa ku hadhay 10% wax ka yar baa ku hadhay si aad lacagtaada ula baxdo. marka 70 euro iyo wixii ka badan hadday dollar ahaan heerkaas ku tahayna $100 iyo wixii ka badan ayaad kula baxaysaa lacagta. marka intaa kadib maxaa samaynayaa payment method baan ku xidhaya. payment method-ka aad ku xidhayso wadanka markaad sameynaysay Google AdSense-kaaga ee wadanka aad dooratay waa inuu noqdaa wadanka dhow toole lacagta lagugu soo hagaajinayo. Google AdSense-ka markaad ku xidhiidhinaysay channel-kaaga wadanka aad dooranaysay waa inuu noqdaa wadanka dhow qofka lacagta lagugu diraya uu joogo. marka qof dibadda jooga adresskiisa iyo ciwaankiisa iyo bank account-kiisa gashanaya si isaga lacagta iigu soo dhacdo wixii aan shaqaysto kadibna uu iigu soo diro. marka Soomaaliya ma ogola sidaad wada ogtihiin oo ma aqoonsana. marka kadibna halkan baan taabanaya si aan ugu xidhiidhiyo. saad arkaysaan halkan add payment method ay ku taalan taabanaya. add payment method marka aan taabto halkan buu keenayaa add new check, add new right transfer. marka saad ila arkaysaan halkan waxa weeyaan waa detailskii weeyaan. halkan waxa haddaad taabato oo aad soo furto waxaad xulanaysaa wadanka lacagta lagugu soo dirayo. tusaale ahaan wadanka lacagta lagugu soo dirayo ma Djibouti ba marka wadan Yuruba ka dhigo. tusaale ahaan United States oo kale ka dhigaysaa. hoos baad soo degaysaa America, waatan United States of America ama UK ama wadamada Yurubta oo kale ayaa degdeg lacagta lagugu diri karaa. marka wadankii marka aad doorato lacagta lagugu soo diray qofka lacagta qabanaya ama qofka lacagta ku qaadaya adresskiisa gelinaysaa. halkan isagaad weydiinaysaa adresskiisa halkan gelinaysaa. magaca qofka lacagta ku qaadaya akoonkiisa ku dhacaysa magaciisa gelinaysaa. halkan waxaad gelinaysaa magaalada uu joogo. halkan state-ka ama gobolka uu kasii joogo macnaha ee wadanka. halkan SIM code-kiisa gelinaysaa qofka lacagta ku qaadaya. kadibna maxaad leedahay halkaas safe ay ku taala taabanaysaa safe. halkaas safe ay ku taala taabanaysaa. kadibna markaad intaa dhamayso bixiso kadib markaad safe garayso intaa kadib maxaad samaynaysaa haddana waxaad u gudbaysaa add check detail-kana tagaysaa add new right transfer. halkan ay ku qoran tahay tan sare ayaa haddana soo furaysaa. kadib maxaad samaynaysaa bank account-kii baad gelinaysaa. marka waxaad leedahay qofka bank account details-kaaga isoo sheeg. waxaa jira
waxaa jira bank nameka halkan gelinaysaa, halkan bank nameka name on the bank, magaca bankiga. marka halkan sare waxaad gelinaysaa aan idin faahfaahiyo, halkan sare waxaad gelinaysaa qofka akoonka haysta magaciisa, qofka bank akoonkan lacagta lagu dirayaa leh magaciisa akoonka ayaad gelinaysaa. halkanna waa bangiga lacagta lagu dirayo magaciisa, bangigu magac buu leeyahay Dahabshiil Premier Salaama Bank saas oo kale. kanina waa qofka akoonka iskale magaciisa ayaad halkan sare gelinaysaa. marka saas oo kale weeyaan. halkan Swift code waxa la yiraahdaa jira. Swift code waxa weeyaan waa code bangiyadu leeyihiin oo xawilaadaha lacagta loo isticmaalo, bangi waliba code buu leeyahay. marka Swift code-ka bangiga lacagta lagu dirayo, qofka bank akoonka lagu dirayo lacagta la weydiinaysaa, account number-ka bangi akoonka numberkiisa waxaad gelinaysaa. mar kale waxaad ku celinaysaa account number-kan halkan gelisay ayaad mar labaad hadana gelinaysaa. waa hubsin, waa si aad loo hubsado inaad qaldaysa iyo in kale. intaa kadib waxaad dad halkan usoo wado kuwan if you transfer go interest internet bank must be based in United wadamada Mareykanka. haddii qofku uu joogo formkan ayaa lagu weydiinayaa bank name option intermediary. bangiyada ayaa jira ma garanaysaa optionkan kugu xidhaya qaarkood. haddii wadanka Mareykanka aad joogto qofka bangiga akoonka iskale ayaad intaa u qoraysaa, u sheegaysaa intaa maad isoo sheegi baad oranaysaa oo kuu soo sheegay dadka Mareykanka loogu diraya lacagta oo kaliya ayaa optionka lagu xidhaya. dadka Yurub jooga iyo waxaas kuma xidhna. marka waa bangiyada qaarkood bay soo imaada. marka intermediary bankan wax kale maaha, waa qofka u dhaxaynaya labada banki. tusaale ahaan bangi American bank ayaa laga soo diraya lacag, kadib waxaa loo soo diraya tusaale ahaan mid Yurub ku yaala. marka labada banki waxa jira wax u dhaxeeya, marka meel u dhaxayso ama qof ha noqdo ama bank kale ha noqdo, bangi kale u dhaxeeya ha noqdo. marka bangiga kale u dhaxeeya ee ay lacagtu soo marayso, akoonka kale u dhaxeeya lacagtu soo marayso ayaa loo yaqaana. marka bangigan lacagta lagu soo dirayo ayaa sheegaya oo u sheegaya qofka akoonka iskale haddii uu jiro intermediary bank. marka bangi u dhaxeeya hadduu jiro, kan bangigan qofka lacagta loo soo dirayo ayaa u sheegaya qofka oo odhanaya bangigaasaa noo dhaxeeya oo intermediary bankeegu waa ka. marka informationku usoo raacinaya marka lacag loo soo dirayo. marka waa saas oo kale. marka intaa marka aad dhamayso marka inta marka dhamayso kaliya waxaa kugu xigaysa inaad save tiraaho, kadibna saasay kugu dhamaatay hawshaan.